isweydiin xoogan ayaa ka dhalatay siideynta sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya kaasi oo lagu qabtay gudaha Somaliland toddobaadkii galbaday iyadoo lagu warhelay Xasan Aadan Maxamed Xasan Ciraaqi maalinimadii shalay hayd isagoo ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida haddaba muxuu ka dhigan yahay aamuska xukuumadda Somaliland ee kiiska sarkaalka sare ee ka tirsan ciidamada Commandos-ta Soomaaliya maxaasi aynu ka ogaan karnaa sidii loo sii daayay iyo cidda Somaliland cadaadiska saartay warbixinteenana ayaynu ku falaqaynaynaa dhowr arrimood oo ka daba tag ah oo aynu ku sameynay siideynta sarkaalkan waxa ay ahayd ugu horreynba dhacdadani mid warbaahinta ka caagan oo aanay gebi ahaanba Somaliland la wadaagin wax xog ah oo ku saabsan sarkaalkan sare ee laga soo qabtay magaalada Togwajaale toddobaadkii galbaday kaasi oo baaristiisu ay ka socotay gudaha Somaliland waxaana gacanta ku hayay ciidamada nabadgelyada ee Somaliland ilowradii ugu dambeeyay la helaana waxa ay warbaahinta xogaal u sheegeen in ay Somaliland diiday dalabyo uga yimid dowlad deegaanka Soomaalida oo lagu dalbanayay sarkaalkan in xorriyadiisa loo soo celiyo iyo sidoo kale dalabaad ka yimid dhinaca Soomaaliya labadaasiba ay ku gacan saydhay xukuumadda Somaliland oo aanay dhagjala u siinin sida ay sharci yaqaanadu sheegeen sarkaal sare oo ka tirsan wadan kale inuu wadan soo galo ayaaba dambi ah oo sarkaalkani ma uu ahayn dambi la'aan marka loo eego shuruucda caalamiga ah ee dunida iyo tan Somaliland waxaana si weyn la isu weydiinayaa sida uu Itoobiya ku soo galay intii aanu Somaliland iman iyadoo ilowradyo madax banaani ay sheegayaan inuu u soo dukaamaysi tagay magaalada Togwajaale sidoo kalena mid ka mid ah xawaaladaha Somaliland isticmaalayay taasi oo markii dambe sababtay in gacanta lagu dhigo ilowradyo kale ayaa sheegaya in laga ruqseeyay shaqadii uu haatan hayay oo aanu ciidanka Soomaaliya wax shaqo u haynin balse uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan sidoo kalena hogaamin gaadhay ilowradyo kale ayaa sheegaya inuu ka mid ahaa saraakiisha Soomaaliya ee si hoose ula shaqayn jiray Itoobiya taasina ay tahay sababta u fududeysay in wadankaasi si fudud u soo galo maadaama ay ka shuruuc duwan tahay siideynta sarkaalkan ayaana waxa ilowradyada intaasi ku darayaan in lagala hadlay madaxda sarsare ee Somaliland kuwaasi oo wada xaajood weyn lagala yeeshay halka ay wararka qaar sheegayaan in Itoobiya ay ka soo dalbatay Somaliland siideyntiisa sarkaalkan oo hadalhayn badan ka dhalisay baraha bulshada warar kalena waxa ay sheegayaan in laba deegaan ka wada hadleen oo qorshe deegaamaysan lagu sii daayay taliyaha kan lagu qabtay gudaha Somaliland toddobaadkii galbaday halka ay xogo kalena sheegayaan maadaama ay yihiin tiro dhaaf xogaha laga helayo sarkaalkan kiiskiisa inay ka qayb qaateen saraakiil ka tirsan ciidanka Soomaaliya kuwaasi oo la soo xiriiray ciidamada kala duwan ee Somaliland inkastoo aan la sheegin qaar gaar ah iyadoo su'aalo badan iyo humaag badan uu ku jiro arrinta tan iyo talaabadan sida ay Somaliland u go'aansatay ayaa aamuskeeduna waxa uu dhalinayaa su'aasha ugu weyn iyo sababta ay hoos ugu dhigtay sarkaalkaasi kiiskiisa oo aan warbaahinta loola wadaagin xataa haddii uu bilaa dambi noqday aanay Somaliland dibadda u soo dhigin tanina waxay noqon kartaa talaabo iyo ficil ay xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cir ku ay karto kalsoonida shacabkeeda maadaama aan la ogeyn sarkaalkan sare inuu qaranimada Somaliland halis ku ahaa oo la sii daayay iyo inuu bilaa dambi ahaa oo xorriyadiisa sidaas ku helo ma jeceshahay barashada Qur'aanka Kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa Qur'aanka Kariimka higaada luqadda Carabiga iyo culuumta shariicada isqoristu way socotaa fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir +252 63477 956